bishan fooda inugu soo haysa oo bisha dilxija ah ayaa mudnaan khaas leh وحديث بخاري صار من حديث عبد الله بن عباس أي النبي وحليه صلى الله عليه وآله وسلم مجران مالمو عمل وناكسر الله سمايا ألا وكتش عليه طبعا كابري عماش الله سمايا صالح قرمو نقضى عملكم وحو صالح نقضى أو عمل وناكسر إلهي أقبل النقضى مركي عدة سمينا ساء مؤمن إلهي الرميسية يمان انت آخره talabaadna waxa weeye markuu ilaahay dartii ula jeedo amalkan oo dan kale uusan kala ahayn tasaddexaadna waxa weeye markuu amalka uu sameeyo oo nabi maxamed kaga daydo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo sunnadii rasuulka waafaqsan yahay ni yahuudiya u yimid umar markaas wuxuu ku yiri ya amiiral mu'miniinta amiirkoodiyo aayad kitaabkiina ku jirta haday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayd اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عمر وحو يلي وانقرنا يا مالين كي سودكتي iyo meeshii ku soo degtay waxay soo degtay buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo Arafa taagan maalinkuna maalin jumcaha uu yahay ayay nabiga ku soo degtay buu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabcan wa hajjatul wadaa wa hajki nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ugu dambeeyay umada uu ku sagootiyay waay maalma inaga xiga ilaahi tabaaraka wa taala nabadii caafimaad ha inagu gaarsiiyo الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأحبتي في الله الله تبارك وتعالى أي نعمة أولا إسكاله شكريgeeda iyo mahadcelinteedana isaga iskale rabbi tabaaraka wa taala Allah mar walba inoogu deeqay deeq badan iyo nicmooyin fara badan oo inaan tiro koobi kareynin mar badan ina soo gaarsiiyay fursado badan oo la tiro koobi kareynin inaan siiyay waxaynu ku dhex jirnaa bilihii sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee mudnaanta lahaa afartii bilood ee ilaahay tabaaraka wa taala 12 bilood ee sanadka uu mudnaanta ka siiyay in ciddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitaabillah sanadka bilihiisu waa 12 bilood sidaasuna ilaahay qoray maalinkuu samaawaadka iyo dhulalka abuuray ayuu u qaybiyay sida u qaybiyay 12 bilood sanadkii 12 bilood waxa ku jirto alla yiri 4 bilood oo mudnaan khaas leh 4 bilood dhexdooda ku jirna 4 bilood ee mudnaanta lahaa oo rabbigan ina yiri tabaaraka wa taala dhexdooda dulmi ha sameynina diinta toosanna waa taas rabbi yiri tabaaraka wa taala bilahaas xurmada leh ee mudnaanta leh taacada iyo khayrka in lagu dadaalo xumaanta iyo dambiyada iyo macaasida iyo dulmigana laga fogaado maxay yeelay khayrka la yimaadana waa laaban yahay dambiga la galana sidoo kale waa ka culus yahay xilliyada kale dambiyada la galo marka wax weeye inaad foojignaato oo taxadartay u baahan tahay dadaal la timaado bilahaas isku mid maaha iyagoo afartooduba mudnaan khaas ay leeyihiin haddana iyagaa sii kala mudnaan badan iyagaa sii kala fadli badan bishan fooda inugu soo haysa oo bisha dilxija ah ayaa mudnaan khaas leh waa bisha ay acmaasha khayrku isu tagaan hadday tahay soonkii iyo hadduu yahay salaadii iyo hadday tahay sadaqadii
iyo hadday tahay xajkii iyo hadday tahay cumradii acmaasha khayrka isugu timaada sidaas daradeed baa mudnaan khaas ah waxa la siiyay bisha 10 bari ee hore ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mudnaan khaas siiyay waxa ku tusay inay mudnaan khaas leeyihiin rabbigeen baa ku dhaartay tabaaraka wa tacaala oo alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wal fajri wa layaalin 10 fajr kan ku dhaashay waaga barigiisaan ku dhaartay buu rabbi yiri iyo habeenna 10 ah mufasiriintu waxay leeyihiin badankood habeenada 10ka ah waa 10ka habeenee bisha dhilhijja ama bisha arafa u horeysa waay allana shay haduu ku dhaarto wuxuu ugu dhaartay buu qabaa bilaash makhluuqaadka kale ugalama soo bixin oo mudnaanta uma siinin nabigeennuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa si'adii mudnaanta ay 10ka hore leedahay وحديث البخاري صار من حديث عبد الله بن عباس أي النبي وحليه صلى الله عليه وآله وسلم مجران مالمو عمل ونكسر الله سمايا ألا وكتش عليه طبعا كبري عماش الله سمايا عمل إلا سمايا إلهي لو قول ولدود ونكسن عمل صالحة وحو إلهي وكتش عليه طبعا كبري بشد الحجة الرئيسة وحي الله سمايا خير يعمل صالحا مركو النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتا يا أرضي النبي صلى الله عليه وسلم دغيسنيسي waxa agtooda muqarrar ka ahay horay u ogaayeen acmaasha ilaahay loogu dhawaaday inuu jihaadku ugu fadli badan yahay markuu nabigu yiri amal ka fadli badan ma jiro saalixa halka su'aal baa timid marka waxay weydiiyeen rasuulka hatta jihaad kamiya hatta jihaad ilaahay jidkiisa lagu jihaado oo ruuxu naftiisa iyo xoolihiisa geeyo oo fulinta galo hatta amalka ma waxa ka fadli badan 10 kan bari oo amal saalix la yimaado markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ha illa hal mid mooyee hal nooc jihaadka kamida waa noocee nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nin baxay ama ruux baxay oo naftiisa iyo xoolihiisa fulinta geeyay oo aan nafna la soo noqonin xoolana la soo noqonin xoolihiisina jidka ilaahay bay ku tageen naftiisa ugu qaalisayna ilaahay dartii bay u baxday kaas mooyee wixii kale oo jihaadka noocyadiisa kala ah waxa ka fadli badan nabi sallallahu alayhi wasallam maalmahan 10ka amalka la sameeyo saalixa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed ayaa waxa laga maarmaanay inaan fursada ka faa'iideysan allana tabaaraka wa tacaala fi suurati al-hajj wa ka inoogu sheegay dadka beedkiisa tagaya ee amaasha u tagaya waxyaalaha ugu waaweyn ee ilaahay la yimaadaan oo maalmahan oo cibaado ah waxa kamida inay ilaahay xusaan tabaaraka wa tacaala maalmaha iyaga ويذكر الله في أيام معلومات ومالمها طبعا كبيشة أهرية مركا إنه فرصة كفائدة يسنو مالما إنه حقا إلهي تبارك وتعالى نبدي عافماتها إنه قارسيه إنه مركا وحوي أدي يرقرونه مشغول كابتي الدنيا دي بعدتك قادتي أوقاتي فضلك بدنا يدوحي إنه مريسا إنه دافيسا إنه موك ونكور هينين ومشغول سن fursad weyn ba halka inagu dhaafayso fursad aakhira ganacsi aakhira inagu dhaafaya inaynu marka u diyaar garano ka faa'iideysano acmaasha saalixa ah ee nabigeenu amaanay sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuulku haduu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadithka isaga al-amalu salih amalka saalixa haduu yiri nabigu ma kala qaadin sallallahu alayhi wasallam waxa soo galaya amal kasta oo ilaahay loogu dhawaado tabaaraka wa tacaala bi sharti an yakuna salihan waxa sharti inuu amalkaasi yahay amal saalix saalix goormuu noqdaa amalku wuxuu saalix noqdaa oo amal wanaagsan oo ilaahay aqbala noqdaa markii cidda sameynaysa uu mu'min ilaahay rumaysan yahay iyo maalinta aakhiro talabaadna waxa weeye markuu ilaahay dartii ula jeedo amalkan oo dan kale uusan kala ahayn tasaddexaadna waxa weeye markuu amalka uu sameynayo oo nabi maxamed kaga daydo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo sunnadii rasuulka waafaqsan yahay عمل كستو صالحة مركا وحا سو غليا قرانك اخرسكيسي وحا سو غليا صلاه كوي سندها كوي واجبك اها وحا سو غليا صونكي كي سنها iyo waajib la qaleeyay iyo nadarkii amal saalixa
waxaa soo galaya sadaqadii iyo ixsaankii iyo samafalkii waxaa soo galaya camal kasta waxaa soo galaya ilaahay dikrigiisa iyo xusidiisa soo galaya camal saalixa nabigu ma kala qaadin salawaatu rabbi wa salaamu calayh waa jiraan waxyaalaha qaarkood oo mudnaan khaasa nabigu uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam mudnaan khaasa leh sida maalan dikrigo kale xadiidka axmed waxa uu soo saaray min xadiid cabdullah ibn umar nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma jiro maalmo ilaahay agtiisa kaga weyn camal la sameeyana uu ka jecel yahay maalmahan tobanka ah maxaan sameeynaa marka nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaad badisaan la ilaha illa allah allahu akbar alhamdulillah ilaahay dikrigiisa badiya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam arabkaagu inuu qoyan yahay ilaahay dikrigiisa uu hayo waana waxyaabaha ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo jideeyay inoo dhaweynaya allah iyo naxariistiisa iyo ridihiisa waxyaalaha ugu fudud waay laana kuuma diidayo waqtina male kuumana diidayo inaad adduunyadaada ku dhex wadato adiga oo jooga dukaankaaga adigoo xafiiskaaga fadhiya adoo jidka maraya adoo gaariga wada adoo gurigaaga jooga adoo jikada ku jira ayaad carabkaaga ilaahay ka xusi karta tabaaraka wa tacaala asagoo saa u fudud ayuu haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay camal aad iyo aad jaliilo weyn mu'miniintana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay ilaahay aad u xusaan rag iyo dumarba wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat bal qur'aanka kariimka dikri meeshuu ku yimaada inta badan waxaa la raaciyaa kathiiran yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru allaha dikran kathiira badiya camal ilaahay loogu dhawaado ka ugu darajo sarreeya uguna tahaaro badan ilaahay agtiisana ugu qiimo badan buu ka mid yahay maalmahan marka mudnaan khaasuu dikrigu leeyahay nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a soonka oo tobanka beri maalinka tobnaadi waa maalinka ciidda ah isaga lama soomi karo laakiin sagaalka ka horreeyaba soonku waa mashruuc camalkaa saalixuu gelayaa maalinka sagaalaadna waa maalinkii carafo oo mudnaan khaasa ayuu leeyahay soonkeedu uu leeyahay gaar ahaan dadka aan xajka aadin waa maalin weyn maalinka carafo oo nabigeenna sallallahu alayhi wa sallam oo iyadana mudnaan khaasa siiyay quraanka kariimka allah tabaaraka wa tacaala nicmo uu ina siiyo waxa ugu qaalisan oo ugu qiimo badan kitaabkan uu inoo soo dejiyay inoo dhammaystiray maalinkii la dhammaystirayna waxay ahayd maalin carafo ilaahay kitaabkiisa u dhammaystiray waxaa tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim ku yimid min xadiid cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu ardaa ni yahuudiya u yimid cumar markaasuu wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow aayad kitaabkiinna ku jirta hadday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayd cumar wuxuu ku yidhi waa aayadee wuxuu yidhi waa aayadda alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintiinni idiin dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina korkiinaan ku dhammaystiray ku taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinka noqday aayaddaasi hadday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinkaa mudnaan khaasaan siin lahayd cumar wuxuu yidhi waan garanayaa maalinkay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay waxay soo degtay buu nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo carafo taagan maalinkuna maalin jumca uu yahay ayay nabiga ku soo degtay buu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabcan waa hajjatul wadaa waa xajkii nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ugu dambeeyay ummadda uu ku sagootiyay waay markuu xajka ka laabtay nabigu sallallahu alayhi wasallam 8 beri waxaan 3 sano dhannay waxaan 3 bilood dhannayn buu nabigu sii noolaa sallallahu alayhi wasallam yaani waxay tilmaamaysaa muhiimadii nabigu uu dhulka u joogay inay soo gabagabowday oo waxay kamid tahay ayadaha tilmaamaya geeridii nabi maxamed inay soo dhawaatay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum wa maalin ciida wa maalin jumca oo jumcadu waa ciida usbuuca muslimiinta waa marka labaad ee maalinta carafa qaar ahaan gelinkeeda dambe waxa lagu tiriyaa ciida lagu tiriyaa
maalin weyn bay marka soo degtay maalinkaasi marka mudnaan khaas u leeyahay waa maalin ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u dambi dhaafo khalaa'iqda in aan tirsanayn oon tiro lahayn oo aan tirin karayn ilaahay u dambi dhaafaa waa maalin dadka carafo taagan ee xujayda ah rabbi tabaaraka wa tacaala uu malaa'igtiisa ugu faano yidhaahdo fiiriya waa maalin weyn innaga dadka aan xajka aadinna waxaa sunno oo loo jideeya maalinka inay soomaan oo nabigeenna wuxuu yidhi sal alay wasallam maalinta carafa soonkeeda allah waxaan kaga rajaynayaa inuu sanadkii ka horreeyeyna ku dhaafo dembigii la galay sanadka soo socday ka dambeeyana inuu dembigii la galo ku dhaafo marka sagaalka beriba waa wada soomi kartaa maalinkaasina mudnaan khaas uu sii leeyahay soonku marka cibaadaadka waa weyn waxaa ka mida nafaqada iyo ixsaanka iyo samafalka ka mida oo mar walba amal jaliil oo ilaahay loogu dhawaado ah oo acmaal fara badan oo qaasir oo ruuxa ku eg ka fadli badan waa nafci mutaaddi oo gudbaya waay inaad marka waxa weeye hadiiba ilaahay wax ku siiyay maalmaha iyaga gacantaada aad furto sadaqadaadu badato khasnada wax badan aad gashato adiga dantaada iyo maslaxadaada weeye waliba munaasabada ay ku soo hagaagayso wax weeye ummadii oo faqri iyo gaajo iyo abaaro iyo macaluul u baaba'aya waa munaasabad weyn oo cidii ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa inay wax dhigata doonaysay heli karto awoodeedii leh ilaahay tabaaraka wa tacaala fursad uu siiyay wax in marka wax way gacanta aad furto wax sadaqaysato waxaad heli karto qaraabada xidhiidhiso gacantaadu furnaatood wax sadaqaysato acmaasha waaweyn ilaahay loogu dhawaaday ka mid tahay alcamalu saalix dikriga ilaahay khayraadka wanaagaasi wax alla waxaad gaari karto ha yaraysanin وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صحيح قاتب الله تبارك وتعالى صحيح لقات وحا أغفي عن الله كعبسك طاعة إنات صحيح قادته خيرات كأت صحيح قادته مدول بوح كدر سطوت كيالته خير كوبته سياد مستقبل كاغا إلهي أكتيس وحوين أغهشو فرصد يذيبا إن هورتا لما الماء إن غحيغا إلهي هين قارسيو وتبارك وتعالى هين قسمه وحل دون يا إنينا fursadaasi si fudud iyo inagoo mashquulsan iyo inagoo moog inaysan ina dhaafin ee aynu ka faa'iideysano biidhnaahi tabaaraka wa tacaala sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم يا قوي يا قهار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك